wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Dr. Cumar Cali Badi ayaa maanta mar uu shir jiraay ku qabtay magaalada Boorama waxa uu ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee xanuunka COVID-19 uu soo ritay bulshada kala duwan ee Somaliland. wasiirku waxa uu sheegay in 18 ruux ay xanuunkaasi u geeriyoodeen baaritaano kala duwan oo la sameeyayna lagu ogaaday dad iyo fara badan inuu xanuunkani u hayo. Cumar Cali Badi oo amuurtaasi ka hadlaya waxa uu yiri run ahaantii socodkaygu wuxuu ahaa un kormeer guud iyo inaan qaranka aan dareensiino in xanuunkaasi soo kordhayo xogtaan hayno haddaynu eegno bishii koowaad ee sanadkan imiga January waxa la baaray 3951 qof waxa laga helay 360 qof dhimashadu waxay ahayd 3 qof bishii labaad ee dhamaatay 4458 qof la baaray waxa laga helay 202 marka 360 baa laga helay bishii labaad waxa laga helay 202 dhimashaduna waxa u booday 7 qof 7 bishan imiga labaad oo wali aan dhamaano maanta ah 7 soo sideed ama saddexaad oo 7 ah baaritaanku wuxuu socdaa 898 oo maanta ku reeban tahay waxa laga helay 117 qof dhimashaduna waxay socotaa 8 qof marka tirada hadlaysa ma aha Boorama hal laga helayo Hargeysa laga helay xogta kaliya la aamini karo ee lagu go'aan qaadanaya ma ha ku tirkuteen ma ha dadku wax iyagu aaminsan yihiin waa xaqiiqada taala saddex shay baa halka ku jira waxaanu aaminsanahay gobolladii awal xanuunku ku yaraan jiray oo Sanaag iyo Sool ah hadda iyaga u badan degmada Ceelaf Weyn oo barigii hore aanu hal case lagu arag hadda cases badan baan ayaan xaqiijinay dhimashana way jirtaa marka waxaad garanaysaa isku socodka dadka mas'uulka ah xanuunka faafistiisa waxaana shaki badan naga jira inuu naga soo galayo dhanka Soomaaliya oo ogtiin inuu korkac oo aad u sameeyay wadamada Chaalka Itoobiya waa la sheegay nooc cusub inuu soo galay xanuunka laakiin wali hay'adda WHO kala hadalay baaritaan baa loo diri doonaa dhiiga kala duwan si loo ogaado nooca xanuunka fayraska wareegaya laakiin xaqiiqada aan la diidi karin baa xanuunku korkac xooga waliba ayaa jira labo awooddeena shaybaaro waxa xadidan tahay laba shay baa xadiday dhaqaalaha labo farsamada imiga waxa mashiin hadduu inaga xumaado hagaajintiisii sababtoo inaga aqoontii Soomaalidu waxa dhaafi laadaay business iyo yaro muxuu ahaa yaro caafimaad ma wada ahay laakiin muxuu waxa dhaafi laadaay iska farin guri laakiin dadkii qalabka caafimaadka hagaajin lahaa ma jira taas marka waxa keentay inuu mashiin ka istaago in muddo ay qaadato inuu dib shaqeeyo ta saddexaadna waxa weey dadkii waan u cadeynaa mar labaad mar saddexaad baaritaanku waa lacag la'aan qof markuu iska shakiyo inuu goobaha caafimaadka yimaado dadku way ka baqaan inta badan wacigana ma qaataan islaali markuu shakiyana cabsiba galisa cabsidaas inuu xakeenaysaa inuu qofkii ehelkiisa iyo waalidkiisa la joogo oo sii sareeyo oo dhibaateeyo markaan isku soo ururino xanuunku korkac weyn buu sameeynaya waxaanu ku jiraa xilli doorashooyin iyo muxuu ahaa iskuuladu way noo furan meena xidhin wali masaajidadu waa sidoodii suuqiisii weeyii doorasho lagu jiraa wax bilaami doona kulli bari gaadhaba wax bilaami doona muxuu kaambeenadii iyo muxuu ahaa isku imaatinadii dadka waxaan u sheegaynaa qofka marka wacyiga la soo gaarsiiyo ee garaadna leeyahay waa inuu qaato ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan cid walba oo qayb ka ah horumarka bulshada ama ha noqoto caafimaad ama ha noqoto adeeg kale waxaan leenahay ummadu wax ku tahay waa yuhuntan wanaagsan iyo soo galaanshaha shaqaalaha caafimaadku meel joogaana waa naftood horayaal u baahan la dhirig ugu yaraan la dhirig geliyo loo mahad celiyo